ma ahin amisom ama ciidan shisheeye waa dal jirdhiifoon muddo dheer kadib waxa soo laabtay cududii ciidanka xoogga dalka waana gorgorkii geeska Afrika waa ciidan aad u kala dambeeya loona carbiyay burburinta goobaha cadawga ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed caruurtoodu joogtay xafiisyadooda waaweyn ka furnaayeen dadka ay ku baadi jireen maalmo shaqo iyo howlgal ka dhana kooxda argagixisada al-shabaab ayay ciidamadu waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolada Shabeellooyinka waxaana ka mid ah deegaanadaasi Buulo Koonte Daniga Baalow Basra Baldoos Landosle Aliflow wixii aan argagixis ahayn dadka shicibka uu nabad galo hantidoodu nabad gasho taliyaha guutada Gorgor gaashaanle Dayax Cabdi Cabdulle ayaa la dardaarmay cutubyada Gorgor 1 iyo Galeyr isagoona faray awaamirta goobaha dagaalka iyo sidii loo ilaalin lahaa maatada ku sugan goobaha laga wada howlgalka howlgalladu intii ay socdeen ciidamadu waxa ay ku guuleysteen in ay sameeyaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga loogana hortegayo falalka dhakridda ah ee maleeshiyaadka shabaabka oo qaarkood ay ka mid tahay in ay ku aasaan miinooyin goobaha ay isugu yimaadaan dadweynuhu sidoo kalena adeegsada qaraxyada nooca gaadiidka lagu xiro iyadoo qaarkood ciidamadu ay ka hortageen weli waxa jirta howlgallo iyo baaritaano ka soconaya gudaha deegaanada hoostaga deegaanka Basro ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe weli ciidamadu waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo military oo lagu xaalufinayo maleeshiyaadka ku dhuumaalaysanaya deegaanada hoostaga degmooyinka Afgooye iyo Balcad ee ka tirsan gobolada Shabeellooyinka sida askarinimo iyo asxaan leh dadku waa dadkii shacabka ay soo gurmateen ka dulqaadaysan Maxamed Cali Sibriye warbaahinta codka ciidamada Basro.